بسم الله محمد حاج إنجليز ويان muuqaalka u jeedaan wuxuu ka mid ahaa aqoonyahanadii iyo qorayaashii lagu soo cazumay bandhiga buugaagta ee Muqdisho maxamed inta aan su'aal kale ku weydiin bal isu kay sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay Atoosh aniga waxaan ahay PhD candidate nin u sharaxan shahaadada PhD jaamacadda Oxford waxaan diyaarinayaa si guud daraasaadka cilmi-baarista Afrika laakiin takhasuskayga waa Soomaaliya state formation qaran baaba ay soo ku dhismaa ayaan ka qori doonaa wax oo daraasadeedana ku jira anoo raba inaan ku eego wadamadii burburay sida Liberia, Chad, Cote d'Ivoire, Sierra Leone, Burundi, Rwanda meelaha burbureen say dad badan oo Soomaaliya la socdaan mawduuca waxaan ku xushay waa wadankii waxaan noqonay Soomaaliya kaliya caalamka 25 sano qarankeennii oo midal la yahay waa inaan marka fahanaa darisnaana sidii aan dib ugu dhalin lahayn marka PhD-deedu waa taas laakiin haddaan waxbarashadeeda ku laabto waxaan markii hore ka baxay KU Leuven jaamacadda la yiraahdo waxaan qaatay Western Philosophy falsafada reer galbeedka jaamacaddeedana Belgiumka ku tiilay kadibna waxaan tagay Ingiriiska waxaan sameeyay postgraduate diploma media law qaanuunka saxaafadda kadibna waxaan sameeyay masters MSc in organization and community development sanadkii 2012 dissertation-kaygana waxaan ka qoray doorka haweenka Soomaalidu ku leeyihiin horumarka wadanka masterkaygaas wuxuu ahaa part time 2 sano kadib waxaan sameeyay master labaad MA in anthropology and history sida loo darso taariikhda iyo dhaqamada caadooyinka waxaan ka qoray doorkii culimada Soomaalidu ku lahaayeen qaabeynta qarannimo dagaalka ay la galeen gumaysiga iyo laba system oo qarannimo ayaa dagaalamayay modern state system kare galbeedku watay wadanka inay ku dabaqaan iyo kii culimada Soomaaliyeed wadeen oo ay kaga soo horjeedeen kaasi waxbarashadiisii marka taasaan darsay hadda buugaygan aan qorana waa ka duwan yahay PhD-deeda buugan wax nooga sheeg maxamed bal wuxuu ka hadlayaa state collapse qaran burburay sababta qarankeena u burburay haddaanan fahmin the causes wixii dhaliyay in qarankeena u burburo dib uma soo dhisi karno qarankeena marka carwadan ma buugan oo qayb gashay mise dhowr buugaad ku soo bandhigtay kanaan keenay laakiin buug kala soo socdo oo ka qoray consequence kan waa causes waxa keenay in qaranku burburo way kan soo socdana waa cawaaqib xumadii ka dhalatay qaran burburkeena marka kan waxa la yiraahdaa the societal state in Soomaaliya qarankii asaga isdaldalay ama qoorta iska jaray kan soo socdana waxa la yiraahdaa the cannibalization of the state in Africa qarankii oo dad cuna qaaradda Afrika kalaana qabiiladii la isku dilay wixii dhibki dhacay oo qarankii ku horseeda ayuu ka hadlayaa marka kanaan hadda ku soo bandhigay waxaan daabacay jaamacadda University Press of America bishii April ay soo saareen marka kan waa meeqa buu ka koobay maxamed wuxuu ka kooban yahay ku dhawaad 400 bog marka kan waa hard cover yani kii jaamacadaha iyo loogu talagalay in la dhigo laakiin waxaan keenoo la iibsaday oo ka raqiisan kan paperback aan u daabacanay Soomaali aan ugu talagalay dadka wadanka gudihiisa ku nool lana raqiisiyay kan hadda dadku waa dhibsanayeen muddo dheer $85 ay gadayeen ilaa intay daabaceen laakiin mid waxaan keenay $20 oo gudaha wadanka loogu talagalay in laga gado maxamed aad baad u mahadsantahay ku soo dhawaaw bogayga Cabdirasaaq Atoosh Cabdirasaaq adaan rabaa inaan ku mahad noqo habeenka dhaweedood iga duubtay oo gelisay internetka maba ogeyn waxay daawaday hooyaday waxa daawaday walaaladay saaxiibaday ummadii oo dhan ay la soo hadashay anu malihi Facebook laakiin hadii ilaahay ma furan doona hadii ilaahay waxay mashquuliyay cilmi baarista faraha badan ku dhex jira maxamed Allah ku xafido khayr badan ba ku rajeen walaalo amiin